بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan salaamayaa shacabka Soomaaliyeed maanta halkan isugu soo baxay shacabweynaha Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed halkan maanta isugu soo baxay inay muujiyaan dareenkooda wadaniyada ah ee u taagan muddo dheer oo aynu dhibaatooyin iyo dagaal ku jirnay dalku inuu isbedelo in dalku midoobo in laga xoreeyo khawaariijta in wixii khilaafaad ee jira la xalliyo Soomaalidu heshiiso oo midoobo oo dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed meel walba ku haysta laga baxo. waxaan ammaanayaa dareenka shacabka Soomaaliyeed had iyo jeer muujiyaan mar kasta oo dalka Soomaaliyeed uu la kulmo ama uu galo cidhiidhi siyaasadeed iyo mid amni. waxaan walaalaha Soomaaliyeed u sheegayaa dalka Soomaaliya waa midnimo ayaan halkan u joognay in wixii khilaafaad ee jira sidii haddana Jabuuti ka dhacday wadahadal iyo walaaltinimo lagu dhameeyo ayaan halkan u joognaa. dadkayga la dareennahay ma dhacayso dhulka Soomaaliya in la kala qaybiyo, ma dhacayso dhulka Soomaaliya in la iibiyo, ma dhacayso xeebta Soomaaliya istaraatiijiyadda Soomaaliya in inaan wax ku lahay wax laga siiyo ma dhacayso. aad iyo aad baan dareenkiina u ammaanayaa. waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay adkeeyaan midnimadooda iyo wada jirkooda. waxaa laga sheegayo hadda waqooyi iyo dowladda Somaliland ee la leeyahay dhul Soomaaliyeed baa lagu bedeshay sheer dowladda diyaaradda Itoobiya. caqliga Soomaaliyeed bay cayb ku tahay, wax la aqbali karayo maaha. dhul lama iibiyo, dhul lama iibiyo, dhul cid lama siiyo, ma heli karaan. ummadda Soomaaliyeed baa iskale. shacabka Soomaaliyeed ama Somaliland taariikh weyn ayay ku leeyihiin xornimadoonkii iyo dhammaan guulihii Soomaaliya gaadhay ee taariikhiga ah. way joogaan dadkii qadiyadaas iyo dareenkaas lahaa waqooyi way joogaan. ma suuroobayso. waxay tabanayaan baanu madaxda ka codsanaynaa muddo dheer oo ay soo jiitatay in si degdega loo xalliyo oo dalka la mideeyo. laakiin taaka dhulka Soomaaliya cidna ma bixinayso. waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan xildhibaanada aan ka tirsanahay xildhibaanada Soomaaliyeed xilligan adag ee lala dagaalamayo khawaariijta ee muddo dheer aynu dhibaato ku soo jirnay la doonayo shacabka Soomaaliyeed dhibaatada ka baxo ee damaca Itoobiya soo baxay inay wax kasta oo khilaaf ah oo kale iska dhigaan oo midoobaan oo mooshinada iska dhigaan oo u midoobaan danta iyo danta Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed ilaa aynu soo afjarno kala qaybsanaanta iyo dhibaatada aynu ku soo jirnay muddada dheer. aad iyo aad baan u mahadsantahay. Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midowdo. aad iyo aad baan u mahadsantahay. aad iyo aad ayay u mahadsan tahay xildhibaan. adigoo ku hadlaya codka xildhibaanada Soomaaliyeed si gaala u taataabatay waa ku mahadsan tahay. Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya ha midowdo.